waa xilli galaba casarkii ayaanu ka baxnay magaalada Cabudwaaq oo aan uga sii jeednay Watsaanyar oo ku taala buuraha u dhaxaysa Cilaanle iyo Galweyn aniga iyo kaamirmaankayga Nasteex Awil waxaan soconaba waxaan gaarnay halkii safarkeenu ahaa ee ah goobta lagu dhaqo malabkana looga soo saaro shinnida ee shirkadda malabka iyo mudaawaadka ee Asal markii aynu gaarnayba halkan ayaan ku casriyeynay sidoo kalena naloogu xoolo qalay intaasi kadib waxaanu xirannay dharka shinnida oo laga maarmaan u ah marka shinnida malabka laga soo saarayo oo aad tagayso goobta ay ku samayso malabka hadda ayaan ka baxaynaa waxa ila socda kaamirmaankayga Nasteex Awil sidoo kale waxaan la socdaa mulkiilaha shirkadda malabka iyo mudaawaadka ee Asal halkan aan ku sugannahay waa buuraha u dhaxeeya Galweyn iyo Cilaanle oo ay shinnida lagu dhaqo waa baxaynaa nala socdo dharkan waxay ka ilaalinayaan weerarada iyo qaniyada shinnida horay fikir ugama aanan haysan qatarta ay leedahay marka laga soo saarayo malabka ay ku samayso gudaha sanduuqda shinnida argagax fara badan ayaan dareennay markii shinnida sanduuqda gudaheeda ay raxan uga soo baxday jawigu waa isbedelay cabsida marba marka ka dambaysa waa nagu sii siyaadaysay hadda waxaan ku sugannahay waa sanduuqdii shinnida ee xarunta malabka saafida ah ee mudaawaadka ee Asal waa buuraha u dhaxeeya Galweyn iyo Cilaanle ayaan ku sugannahay wiilkan dhalinyarada ayaa shinnida ka shaqeeya hadda waad aragtaan waxaana soo saaraysaa waa maxay malab sajil waxaan garbahan dhan hadeer alwaaxdan yar hadda aad haysata kan oo kale muxuu u yahay malabka garbiga iyo malabka ku sameeyo waxaan dhan waa garbiga iyo malabka ku sameeyo malabka markuu soo saaro isku mid soo godadkan malab sajil ah waxaan bahalada aan soo saaray sida garbahan malabka ku istirmiya malabka kuwan dhan waxaan malabkii iyo faraanka hadda way buuxan alwaaxan hadda soo jeedin kan garbahan hadda waxaan alwaaxadan aan banaanka kuwan hadda meesha ku jiro waa malabka qaarna waa sajil qaarna hadda ku aysan hadda xiran waa malabka sajilka intay buuxsada afka ka xirtay sidaan kale looga cayriyo shinnida ee halka la dhigo see looga miiraya malabkan markaas baa la qaadayaa makiinada yaala lagu shaqeeyaa makiinadaas baa hadda ku aruurin markaas waa makiinada malabka ayda ka miiraysa markaa waa shaqo qatarteeda wadatay adag tahay waad aragtaan waxa dushannada maraya ilaahay ha naga badbaadiyo shinnidan cabsi iyo argagax fara badan kadib waxaanu ka soo baxnay halkii ay yaaleen sanduuqda shinnidu ku xareysan tahay balse shinnidu nagama harin oo dusheenna ayay ku raran tahay qiiqa ayaa nalooga buufinayaa si shinnidu inooga harto ilaa iyo 2 kiiloomitir ayaan lugeynaynay si shinnidu inooga harto waxaan ka soo baxnay meeshii qatarta ahayd qiiqan ayaana looga reebayaa waxaanu ka soo baxnay aniga kaamirmaanka iyo yarkan Cabdinuur ee garabkayga taagan goobtii waa sanduuqda ay ku xareysan tahay shinnida malabka iyo mudaawaadka ee Asal waxaanu joognaa saan hore idinku sheegayba buuraha u dhaxeeya Galweyn iyo Cilaanle waa hawl qatarteeda wadata wali shinnidu nagama harin walaal goorma naga haraysa shinnidan ilaa adiga 10 daqiiqo waxaan dhameynaa wax haraysa waxaanu soo soconay ilaa 2 kiiloomitir oo shinnidana laga reebayay Cabdinuur xageed ku baratay shinnida iyo sida loo dhaqo shinnida aniga waxaan ku bartay awlkii hore koonfurtaas baan ku dhaqaaleyn jiray adiga kadibna ilaa galgaduud meelahan ku dhaqaaleen hadda way yartahay haddana meeshan ku suqanayo meeshan ku dhaqaalaya laakiin anaga aniyo kaamirmaankayga Nasteex waxaan joognay wax yar daqiiqado kooban adiga maalin walba qatartaas ma u bareertaa maalin walba aniga qatartaas aan iskala qabsaday ma aragtay maalin walba saas ugu shaqeynaa marbay maanta hadda waa yartahay maanta marbay markaas ka daraysaa markay ka dartan adiga sideeda waan ugu shaqeynayo iskaga dhax jirnaa wali intaad ka shaqeynaysay
khatar naftaada ma gelis taariikhdii ugu xumayd ayadoo xoolo intii bay ahayd waxaa naga dishay ari oo 26 neef ah hal maalin naga dishay hal maalin ku degtay maalintaas baa khatartii ugu badnayd maalintaas bay xagee bay ahaydna meeshaas waxa ahayd gurcaal bay ahayd goobta ay shinnidu ku xariisan tahay oo ah goob ay shinnidu ka hesho dhir fara badan oo ay malabka ka samayso si ay u soo saarto malab saafi ah oo ay dhir kala duwan ka samaysay ayaa ah meel dhaqashada shinnida ku wanaagsan Siciid Cabdulaahi Cali Siciid Shinnile waa mulkiilaha shirkadda malabka iyo mudaawaadka ee Asal wuxuu inoo sharaxayaa shinnida iyo waxa ku dhaleeyay dhaqashadeeda iyo dhirta ay ka samayso malabka waxaan hadda ka nimid halkii ay taalay sanduuqda shinnida malabka saafida ah iyo mudaawaadka ee Asal waa kana mulkiilihii shirkadda malabka iyo mudaawaadka ee Asal gadaasheena waxaa ka muuqata sad u jeedaanba waa buurtii galweyn ee caanka ku ahayd soo dhawow shinnidan halkanaad ku dhaqayso iyo waxa ku kalifay ayaan le horta aniga magacaygu waa Siciid Cabdulaahi Cali mulkiilaha shirkadda malabka iyo mudaawaadka sida saliidaha kala duwan oo saafi ah oo lagu shiidiyo sida sisinta xabad sawdada saliid saytuunka lowska qumbaha oo hortaada lagu shiidayo waayahay Siciidow halkan aan joogno shinnidu hadda waa soo dhaafnay ba ka soo baxnay qatar badan waa soo marnay waayahay maxaa shinnidan iyo inaad dhaqato ku kalifay adiga ayaan waxa igu kalifay horta shinnidu aayad quraana ayay ku magac suurad quraana ayay ku magac tahay haddana ilaahay baa quraankiisa ku sheegay inay daawo tahay sidaas la aligeed markaan arkay gobolkeena inaan lagu sameyn in badan oo ummadeena kamidana qayb olyo loo soo qaso iyo qayb waxa loo keenay ku shakisan inay malab yihiin iyo in sonkor la soo qasay ay yihiin taas ayaa waxay ugu kaliftay ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka iyo dadka deegaankeenana inay helaan malab saafi ah oo quraanka lagu sheegay maxaad ku dooratay halkan inaad keento ayaan loo halkan waxaan ku doortay horta shinnida waxa quraanka loogu sheegay inay milaha dhamaantood cunto waxa igu kalifay meesha buuraha waa meeshii shinnida la yiri deg oo la yiri guriga ka samayso buuraha iyo geedaha la yiri taas ayaa waxay ugu kaliftay maadaama dhir kala duwan oo ubax kala duwan leh meel barwaaqa oo mar walbana hadiya jeer roobku ku hormaro jidaalkana ubax walba laga helayo buurahana ay tahay shinniduna ay ku fiican tahay inaan halka keeno taas ayaa ugu kaliftay waayahay bal sida malabka aad u soo saartaan hadda gacanta waxaan ku hayno waa maxay waa malab seejal ah weeye malab seejal ah weeye oo garabkiisa ku jira wakaas malab seejal ah weeye wakaas garabka cunaya miya malab seejal ah weeye waayahay garabkan ama shinnidu intee bay ku soo saartaa malabka ayaalow shinnidu waxay wax ku soo saartaa haba siday daaqa u haysato ayadana ay tiradeedu la eg tahay habana waxay ku xiran tahay sida ayadu ay daaq u hesho waayahay hadda waxaan gacanta ku haynaa waa garabkii sida kolley malabka looga miirayo haddaad in yar u sharaxdo dadka ku daawanaya ayaalow sida malabka looga miirayo malabkan ma lagu miiriyo gacanta mana la taabsiinayo gacanta mishiin baa lagu miiriya kolley in badan baa shaqaynaysay maanta qatar badan baan u bareernay shinnidii oo waxaan tagnay sanduuqdeedii oo garbaha laga soo saarayay runtii qof ka tagay ayaa ku dhiiran kara inuu halkaa tago halis baad ku galaysaa ma jirtaa wax khatar aad kala kulantaa marka xagga tagtaan oo kale ayaan la horta adiga ayaa khatar u arkay anigu khatar uma arko wax khatar inaan u bareernay ama aan galnay uma arko waxaan u arkaa sida neefka geela loo dhaqdo ama neefka ariga loo dhaqdo oo kale inay tahay marka adiga baa naf jacaylka ka batay waxa weeye shinnidu sida xoolaha loo dhaqdo oo kale ayaa loo dhaqdaa meesha marka aan tagnay shinnidu kaamarada iyo idinkaba way ku soo xoontay waxaana sabab u ah wax kasta oo Ilaahay abuuray inay isdifaacaan ba Ilaahay u sameeyay xayawaanada mid baa marka taabatid dhacaan kugu sideynaya baashan malabkeedii iyo xarunteedii markii loogu tago iyo wixii ay diyaarsatay difaac bay sameeynaysaa difaaceedii ayuu waxaad arkaysaa waxay difaacanaysay malabkii aan soo saareynay ayay difaacanaysay kameramankana
malab baan u siinaynaa wixii soo gaaray malabkan in badan ay shirkaddu waa shaqeynaysay meelaha u iibgeyso caawda qiyaam soo meelo kale ayaalow annagu hadda waxaan joognaa gobolka Doolo degmada Wardheer khaasatan santarka ah degmo sugaha ee Cilaanle iyo golwey bartamahooda ayaan joognaa maadaama aan ahay muwaadin u dhashay labada dhinacba Wardheer iyo dhankaasna waan u iibgeynaa gobolka Doolo dhanka caawdaqna waan u iibgeynaa ganacsigu maadaama uu xor yahay uu isku furan yahay Mareykan baa xataa nala ka soo dalbadayay Ingiriis iyo Canada baa loo qaadaa oo anagoon hadda ayadoo aan diyaarin ba qof walba wuxuu ku leeyahay aniga lacagta iga sii qabo weelka igu shublahayd iga sii qabo magacayga igu sii qor taasna waxay kaliftay inaan cidna waxba ka qaban si aan hadhow cidna noogu hungoobin waxa tahay mulkiilaha shirkadda malabka iyo daawaadka asal waxa jira in dad badan oo ku weydiinaya markay malabka gadanayaan malabka musaafiba shinnida xaggee bay ku dhaqan tahay waxyaabo badan ku weydiinayaan dadka ku daawanaya maxaad ugu cadaynaysaa ayaalow horta waxa la yiri leysal khabaru kal muayana baa la yiri aragtidu ma aan hadalko kale qofkii aqli leh ama qofkii jooga ayaa wuxuu marxaati ka yahay meesha shinnidaas ay joogto iyo waxa ay cunto waxaan idinkuna marxaati baad ka tihiin rag far badan horena way yimaadeen dadka deegaankuna way yaqaanaan waxaan diyaar u nahay qof kasta oo shakisan qof kasta oo ka shakisan shinnida iyo waxay cunto inuu na soo raaco indhihiisa ku arko sida aad horteeda ugu cunaysid oo hortaada aan ugu lisayno inaan u lisno malab saafiyana uu qaato asagoo arkaya iyadoo u wixii cunayso soo qaadayso xaraynaysa inaan u lislaan diyaar u naha sidoo kale waxaan leeyahay dadka waxa la yiri qofka dhagahaaga laguma arkee indhahaaga lagu arkaa waxaan ula jeedaa qof baa waxa leeyahay waxaas waa sidaas ama qofkaas waxaas waa shay baa looga waramayaa run buu ka aaminayaa run ahaantii waxa xaqiiqa qofku wuxuu indhihiisa ku arko ma aan inuu qofku dhagihiisa wax ku arko oo dhagihiisa waxba inuu ku maqlo indhihiisana wax ku arko kaaleeyana soo raacay indhihiina wax ku arkaan leenaha waa yahay shinnidu ma halkan kaliya u deysaa mise marba meel baa sida ku habboon ama meelaha ay mataqaanaa ka soo saari karta malabka loo geeyaa ay ka heli karto dhir fara badan ayaan le shinnidan annaga shinnidan sida xoolaha aan loo xanaanayn si kasi daran baan u xanaanaynaa marnaba uma ogolin maalin kamida inay bilaa ubax iyo bilaa dhir noqoto marka ay ubaxan ku joogto baabuur baan qaadanaa mootooyin baa la qaataa waa loo sahmiyaa meelba meesha ay ka wanaagsan tahay ayaa la geeyaa barwaaqay ku jirtaa waxayna ka qaadaa inaysan maaragtay ay qofka uga hortagto meel fog ayadoo maaragtay wax mar walba barwaaqo iskaga jira qooqday camal ah waayahay marka abaarta dhacdo kale sidee wax u maaraysaa ayaan la abaartu markay dhacdo waxa weeye dhulka aan joogno waa dhul barwaaqa waa dhul dhirtiisu fara badan tahay waa dhul dhirkiisu kala duwan tahay geedo jiidaalka ubxiya ayaa jira geedo jidaalka ubxiya ayaa jira haddii meeshaas ay abaar tahay oo roob ka diin oo aan ubax jirin waxaan u hayaaminaa meeshii uu roob ka da'ay oo gobolka kamid ah waayahay Siciidow waxa jirta in dad badan ay aaminsan yihiin in sokor la siiyo shinnida dadkaasi maxaad ka qancinaysaa maadaama adiga shirkadaadii amaanta dhex joogno halkii ay shinnidu marka soo saaraysay sax ayaa loo su'aasas inaad weydiisid waan ku mahadsan tahay waxa weeye horta waxaan leenahay shinnida la leeyahay sokor baa la siiyaa dadka mar labaad waxaan leeyahay indhihiina wax ku arka annagu shinnida aan hayno meesha ay joogto ayaa laga dareemayaa waxa ay cuntay malabka aad cunaysid baanad ka dareemaysaa waxa ay tahay shinni baahan oo magaalo lagu dhaxayo ama aan daaq haysan ayaa sokor cunta hadda tusaale markaan xarunteeda joognay inta aanan dhex gelin shaah baad cabaysay ayaan la koobka iyo bakeeriga iyo darmuuska aad shaaha ka cabaysay marna wax shinniyo ag maraysa miyaad ku aragtaa okay waa sonkor haddii ay shinnidaasi baahan tahay waxaad ku arki lahayd ayadoo dul maraysa baad ku arki lahayd shinni marka annaga meesha aan joogno meel baahi ka jirto ma ahan shinni baahan oo magaalo lagu dhaxayo ama meel aan dhir ku olin lagu dhaxayo ayaa sonkor yeesha shinnidan marba hadday ubax haysato oo daaq haysato maba kaa cunaysaba hadda dadka dhan u yar waan qasaynaa waan dhex dhigaynaa hadday ku degto annaga dambiilayaal waayahay su'aashida kale aan ku weydiinay waxa weeye in dad badan waxay tijaabiyaan ay sameeyaan malabka inay geliyaan talaagado kale uu fariisto ayadana maxaad uga shaafinaysaa ayaan loo horta midda aad leedahay malabka fariisadka iyo talaagad baa lagu baaraa horta waxa weeye malabka talaagada lagu baarayo
kolay waxaas inaysan wax jira ahayn baan u malaynayaa malabka waxaa jira geeda fariista geeda malabkooda fariisto baa jira qofka waxaa rabnaa inuu maaragtay uusan inta asagu meel fariisto uusan wuxuu ku sheekeeyo uusan dadka run uga dhigin youtube-ka ha la galo baraha malabka ha la geliyo ha la baaro waxa weeye geedka gogobada la dhaho oo geedaha hadda dadku ay Soomaalidu ay alaaba u isticmaasho dawo ahaanta ah ubixiisa shinnidu markay malabka ka qaado hadduu yaalo 2 bilood ama 3 bilood shucaacbu hoosta ku yeeshaa wuuna fariistaa taasina ma ahan in sokor lagu daray ama talaaga la geliyo uu ku fariistay geedahana malabkoodu way kala duwan yihiin malab cadde iyo malab gaduud baa kala jira malab cadde geedaha malabka calle waxa kamida cadaadka kamida dhirindhirka kamida gogobada kamida bilcilka kamida waxa kamida geedka qansaxa la dhaho geedahaas oo dhan malabkoodu waa malab cadde balse geedka la dhaho gogobada alaaba wuxuu u badan yahay dhowr markii la kaydiyo inuu shucaac hoosta ka keeno fariisad yarna uu sameeyo taasna ma ahan waxaan anigu hadda leeyahay dadku youtube-ka inta galaan oo maaragtay gruubyada shinnida iyo fiirshaan ha fiirsheen meelaha cilmi baarisiyaastii ay kaga sheekaynayaan malabka fariista iyo malabkaan fariisan malabka hadda ugu qaalisan waxaan u malaynayaa in la igu yiri waxa laga helaa Norway miyaa la igu yiri meelahaas laga helay wadanka Dutchka ma wadan baa la ii sheegay uu fariista sida xalwada loo jaraa baa la yiri balse taas ma ahan anagu inaan leenahay malabkaygu mar walba uu fariista anaga malabkaygu meel kayn uu joogaa qofkana waxaan ku qanacsanahay inuu indana soo raaco oo 2 maalmood joogo oo shinnidu waxay daaqayso uu arko ka bacdina aan uga lisno oo naga iibsado asaguna uu dawo saafiyo helo oo Ilaahay quraanka ku sheegay oo quraanka lagu sheegay in shinnida beerkeeda uu ka soo baxo sharaabun mukhtalifun alwaanu fihi shifaa'un linnaas oo Ilaahay ay quraanka ku leeyahay marka sidaas weeye ayaan low dadku ha baareen wax yeesan waa yahay ugu dambeyntii horta markaan meesha imaanaynay aad u mahadsan tahay sida aad nagu soo dhaweysay iyo sida aad nagu xoolo gashay oo aad waxa ugu horeeyaan noo keentay waa dhulbalihii iyo shaaxi dadka ku daawanaya kullay qofkii halkaan yimaado walba arki kara innaga saad hor u sheegtay shaaxa noo keentay xitaa shinni ma arag iyadoo waliba noo dhaweysay sanduuq noo dhawaayay dadka ku daawanaya dhirta hadda quruxda badan ee horteena ka muuqata buurahan dhinac walba nooga hareeraysan shinnida daaqaysa dadka ku daawanaya malabkan jecel inay helaan xageesa ugu soo hagaagayaan maxaas ku soo dhaweynaysaa dadka ayaalow dadkaas horta waa maasan tahay ayaalow waxa weeye booqashada aadna soo booqateen mar labaad taas markaan uga gudbo dadkana daawanaya waxaan leeyahay horta meesha aan joogno iyo malabka idinka iyo in badan oo ka soo horeysay booqatay markhaati baad ka tihiin waxaan leeyahay shinnida shirkadda malabka iyo mudaawaadka asal waxa qofka loogu soo hagaagi karaa xarumo ay ku leedahay Caabudwaaq cilaanle baa loogu soo hagaagi karaa telefoon haddii loo baahdo waxa loogu soo hagaagi karaa telefoonka hurmuudka oo ah furashan 41 iyo furaha kale oo hurmuudka telefoon kale oo hurmuudka furo eber 26 asagoo samteelana waad nagula soo xiriiri karaa oo 41 eber 62 ah telefoonka Ethiopia waxaad nagala soo xiriiri karaa eber 9 eber 7 37 eber 2 baad nagala soo xiriiri karaa Ethiopia marka shinnida malabka laga soo saaro oo garbaha malabku ku jiraan banaanka la keeno ayaa mishiinkan la geliyaa garbaha kadibna sidaas looga soo saaraa malabkii oo saafi ah daawadii hadda waxaan joognaa mishiinkii malabka Saciid hadda bal waxa ka warbixisaa mishiinkan iyo wuxuu qabanayo ayaalow mishiinkan waxa looga saaraa malabka markii shinnida laga soo saaro fareenada oo garbuhu ku jiraan baa la geliyaa waa la wareejinayaa asaga naacaw ku furiya malabku ka daadinayaa sidaasna malabkii oo saafiya oo gacan lagu taaban oo nadiif oo mishiinka qalinka ku dhex jira baa ka gaas halka ku yaala laga shubayaa shaqo badan kadib mishiinkan ayaa malabkii oo nadiif ah laga shubayaa si loo iibgeeyo malabku waa midka kaliya ee ugu macaan waxyaabaha uu Alla ugu deeqay ummadiisa inay ku manaafacsadaan sidoo kalena laga yaabo inaadan ka warqabin inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah hadda waxaan ka dhamaanay malabkii iyo soo saaristiisa dhibkii aan ka soo marnay saacadu
xilligan waa 9:30 daqiiqo ah ama 9:00 fiidnimo waxaan hadda aan ka dhamaanay hawsheedii malabkii halkan lagu leesiyay shirkadda malabka iyo mudaawaadka ee asal ee walaalkan Saciid Shiniile uu halkan fikirkeeda uu ka abuuray waad aragtaana raggii asxaabta ahaa caagadahan ayaa mid walba loo dhaamiyay oo malabka looga buuxiyay aad u mahadsan yahay aqyaaray dib aan ugu noqon doonaa magaalada Caabudo hadda waxaan taaganahay waa cilaanle iyo galweyn dhexdooda waa halka shinnida lagu dhaqo malabka ay ku soo saarto aad u mahadsantihiin Ayala Cabdullaahi Jaamac Home Cable TV Caabudo